اللي حراء معقول إن وحن يا معقول إن السعودية يا معقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بدن كومنتيدا يقصوا قراين أصحابتي ذا بابا جي بارت 2 أيان ربنا بارت 2 أيان ربنا بارت 2 أيان ربنا runtii bart 1kii waad aragteen dhibaato fara badan ayaa ka imaaday saasay tahayna mar walba aniga tiimkayga muhiim ay yihiin sheekada waxa ay inoo mareysay aniga oo ka soo baxayo Uganda markaan Entebbe ee laboorkiisa aan ka soo baxay saacada waxa ay ahayd 12 saac iyo adiga qadar 30 daqiiqo waxaan imaanay oo hawada aan ku soo jirnay ugu yaraan waxaan imaanay Masar ama Qaahira laba saac iyo bar taqriiban meelahaas oo kale ahayd laba saac iyo bar ayaan imaanay intii elboorka lagu jiray oo boorsooyinkii wax wala raadsanay iyo adiga 3 saac ay isku noqotay bas aniga maadaama qof naafa ahay elboorkan aan ku dhex socon karin qof baa la ii soo diray diyaaradda wheelchair iga soo dejiyay ilaa adiga wheelchair igu wada inta boorsada ka raadsanay kadib waxaan ku arkay meesha wiil Soomaali oo ii sheegay asagana transit in uu ahaa oo wadan Europe oo u socday marka meesha igu salaamay way aqoonsaday way isa salaanay waa isbarnay magacyadan kala qaadanay adiga ma sha Allah si fiican isku soo dhaweynay way Soomaalida meel isku aragtay qof walba uu yaqaana kadib aan sidii la ii soo wada wheelchairka meel baa la istaajiyay boorsooyinkayga oo ag dhigay kadibna baasaboorka iga qaaday waa uu iga tagay wiilkana baasaboorka laga qaaday anagoo isdheheena baasaboorka uu ku soo celinaa ama uu idin soo celinaa oo yaraan 20 daqiiqo camal naga maqnaa cabaar saa meesha u taagneen wuu noo soo noqday wheelchairka igu soo reexay wiilka marka Carabiga yaqaanaya weydiiyay wuxuu dhaw walaal aaway baasaboorka naga qaaday markaas wuxuu yiri aniga waxa la igu amray inaan baasaboorka idin ka soo qaado aan immigration ka geeyo xagan idin geenaya wixii ka dambeeyna qof kale idin la wareegayo aniga shaqadeeda intaas ku eg tahay aniga wayaab waxaan isleeyahay sabab oo xagga Uganda baasaboorka lagaga soo qaaday inta baasaboorkaaga laga qaadaa maxaa qaldan aniga macnaha transit-kaas inta waxaas ma ogeen marka cabsiya igashay aad aan u cabsaday kadib wiilka wuxuu dhahay isdaji waa caadi kulli maadaama aan transit-dan wax laga yaabaa inay noo diidayaan anaga inaan baxno oo banaanka aan aadno okay ugu yaraan aniga 3 saacadood oo kale ayaan transit ku ahaa asagana ilaa 6 saacadood oo kale taqriiban transit ku ahaa marka waxaan islahay bal meelina geeyeen oo qol ah laba sariir taalay asagana mid oo seexday anigana mid aan seexday marka aniga asagana kulli aniga ma sooneen asaga laakiin ma sheegi kari aniga laakiin ma sooneen maadaama aan diyaaradda ka soo raacay 12 saac oo wax diyaaradda raashin lagu soo siinin oo anigoo aad u baahan aan imaaday 5 saac airport soo galay ahayd midka Uganda sheekada hore waa la socotiinba kadib adiga quraacay ii keeneen quraacdii yaan cunay shaahi ii keeneen waa cabay waa iska qabeystay kadibna saladii lagu lahaayeen dugtay waa seexday diyaaradii iga tagtaybo bas baa soo kacay markii aan soo kacay oo aan soo qaatay documentigeyga iyo ticketkii iyo wixii aan watay oo banaanka aan u soo baxay dhag wiilka baasaboorka iga horkeen ho baasaboorkaaga qaybta markaa imaada oo liigeeyaba diyaaraddu way ka tagtay aniga aad u naxay